waxaana wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warbixin gaar ah oo aynu xooga ku saari doono xiriirka adag ee uu Turkiga la sii yeelanaya qaaradan madow ee Afrika. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa dhawaan safar ku soo maray qaarada Afrika, gaar ahaan saddexda dal ee Angola, Togo iyo Nigeria. Haddaba warbixinteena inta ay socoto waxaan ku lafaguri doonaa goorma soo bilowday xiriirka Afrika iyo Turkiga, halkee ayuu hadda marayaa, yaa si xoogiisa ugu badan dhaqaajiyay. Kusoo dhawaada warbixintan oo faahfaahsan. Angola waxay u ahayd booqashada Erdogan midii ugu horeysay ee uu ku goosto dalkaasi, waayo dhawaan ay ahayd markii diyaaradaha Turkish Airlines ay duulimaad toos ah ka bilaabeen caasimadda dalka Angola ee Luanda. Dhanka kale, dalka Turkiga ayaa heshiisyo badan oo wada muhiim ah hore ula saxiixday dalalka Togo iyo Nigeria. Waqtigan la joogo tirada dalalka Afrika ee uu booqday madaxweynaha Turkiga Erdogan inta uu xilka hayay ayaa gaaraya 30 dal. Kana waa safarkiisii 14aad ee Erdogan ku tagay qaaradda Afrika tan iyo sanadkii 2002. Dalka Faransiiska ayaa ka mid ah dalalka sida aadka ah u dhibsaday socdaalka madaxweyne Erdogan ee qaaradda Afrika. Warbaahinta Faransiiska ayaa guud ahaanba si dhow isha ugu haysay socdaalka Erdogan iyaga oo si liidata wax ugu qorayay socdaalkiisa Afrika. Tusaale ahaan, wargeyska Le Monde ee ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn Faransiiska ayaa faallo u ka bixiyay socdaalka Erdogan. Waxa uu yiri safarada halista badan leh ee uu madaxweynaha Turkiga ku marayo qaaradda Afrika waxa ay saameyn ku leeyihiin amnigeena guud. Faransiisku hadda waxa uu dareemayaa baqdin badan, waayo Afrika waxa uu arkaa beertiisa gaarka ah, waxayna aad ugu xun yihiin xiriirka si kordhaya ee uu Turkigu la sameynayo dalalka Afrika. Saxaafadda Faransiiska oo mar kale faallo ka bixinaysay badeecadaha Turkiga u dhoofiyo dalalka qaaradda Afrika waxay tiri badeecadaha oo Turkiga Afrika geeyo waa ay ka qiimo hooseeyaan badeecadaha reer Yurub, waxayna xitaa tayo ahaan ka fiican yihiin badeecadaha Shiinaha. Qorshaha Turkiga ee ku wajahan qaaradda madow ee Afrika waxa uu ka mid yahay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee ku jiray ajenda siyaasadeedkii arrimaha dibadda Turkiga ee la dejiyay sanadkii 1998. Hirgelinta dhabta ah ee qorshaha siyaasadeedkiisana waxay bilaabatay sanadkii 2005 markii uu Turkigu ku dhawaaqay barnaamijkiisii sanadkii Afrika, kadibna uu bilowday xiriirka Turkiga uu la yeelanayo Afrika. Waqtigan la joogo muga ganacsiga uu Turkiga leeyahay qaaradda Afrika ayaa kordhay 5 jibaar muddo 20 sano ah, halka tirada safaaradaha Turkiga uu ku leeyahay Afrika ay ahaayeen 12 safaaradood sanadkii 2002. Maanta ayaa waxa ay gaarayaan 43 safaaradood. Muga ganacsiga labada dal ayaa dhawaan kor u dhaafay 25.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, halka uu sanadkii 2003 ahaa 5.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Maalgashiga tooska ah ee uu Turkigu la sameynayo qaaradda Afrika waxa uu gaaray hadda wax ka badan 6 bilyan oo dollar. Waxa ay siyaasadda Turkiguna gashay dalal badan oo Afrikaan ah oo laga yaabo in aysan dadka Turkigu weligood maqlin magacooda ama xitaa aanay aqoonba meesha ay juqraafi ahaan dalkaasi kaga yeelin adduunka. Liiska duulimaadyada joogtada ah ee shirkadda Turkish Airlines ay ku tagto Afrika ayaa kordhay, waxayna hadda diyaaraddu duulimaadyo toos ah ku tagtaa 60 gobol oo ku yaala 39 dal oo Afrikaan ah. Hay'ado badan oo Turki ah ayaa ka howlgala qaaradda madow sida Tika, Aved, Macadka Yunus Emre, deeqda waxbarashada Turkiga bixiyo, wakaaladda Anadolu, bisha cas ee gargaarka bini'aadanimada, awqaafta iyo diinta Turkiga oo ka howlgasha qaaradda Afrika. Intii u dhaxaysay sanadihii 2009 ilaa 2019 Turkigu waxa uu bixiyay 2.5 bilyan oo dollar si loogu caawiyo dalalka ugu faqiirsan Afrika. Turkigu waxa uu ku naaloonayaa marka Afrika laga hadlayo astaan gaar u ah isaga, taas oo muhiim u ah waqtigan la joogo. Waxa ayna tahay taasi inuu isagu ku jirin dalalka Afrika gumeystay, waxayna siisay sumcad guud oo togan. Arrinkaasina waxa uu Turkigu u horseedi karaa inuu si fudud ula falgalo dalalka Afrika dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo iskaashiga arrimaha gobolka iyo caalamka. Dhab ahaantii istaraatiijiyadda Turkiga ee Afrika ku wajahan ujeedadeedu waxa ay tahay in uu Turkigu noqdo ciyaartoy siyaasadeed oo adeegsada awoodda jilicsan. Taasina ma ahan mid Afrika kaliya ku kooban, laakiin sidoo kale waxa uu adeegsadaa meelo badan oo kale. Marka la eego mowqifka Turkiga ee Afrika, marka la joogo fagaarayaasha caalamiga ah gaar ahaan qaramada midoobe, muhiimadda ay Afrika u leedahay diblomaasiyadda Turkigu
waa mid si fudud loo fahmi karo marka la eego qaababka uu Turkigu Afrika u daneeyo. Ugu dambeyntii, Afrika ayaa hadda ah aag ay tartan ba'ani ugu jiraan dalal badan. Mareykanka iyo dalalka kale ee reer Yurub ee horey u gumeystay Afrika waxa ay muddo dheer ka shaqaysanayeen qaaradan Irmaanka ah, iyagoo aanay cidini ugu imaaneyn xilligii uu ahaa Bariisamaadka. Balse hadda waxay u muuqataa in aan tuulo dambe la isku dhaafi doonin, waayo waxa ku tartamaya dalal badan oo bilaabay in ay ka howlgalaan qaaradda sida Shiinaha, Iiraan, Hindiya, Brazil iyo Turkiga oo ku shaqeynaya hadda jawi tartan oo isballaarin ah. Waxaa badanaa ka eegdhow dalal kale oo u ordaya Afrika, waxaana tusaale yar usoo qaadan karnaa hadal uu sheegay madaxweynaha dalka Togo mar ay si wada jir ah shir jiraayad u wada qabteen isaga iyo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. Hadalka Master Genizigbe waxaa ka mid ahaa: mudane madaxweyne Erdogan, waxa aad mar walba difaacdaa dalalkayaga Afrika. Ilaa iyo hadda marna maana arag hogaamiye aan Afrikaan ahayn oo booqda qaaradda Afrika. Adigu mooye ku soo dhawow madaxweyne qaaradii aad jeclayd oo iyana ku jecel. daawada haddii aad la dhacday warbixintan gaarka ah, fadlan u sheer garee saaxiibadaada kale si ay iyaguna u daawadaan. aad ayaan uga faraxsanahay inaan haysano daawade sida adiga oo kale ah. mahadsanid.